ka socday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminaya wasiirka maalgashiga iyo arrimaha qurba-joogga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu kormeer kala duwan ku soo mareen goobo ganacsi oo ku yaala Boorame iyo goobo waxbarasho ay ka mid ahaayeen dugsiga MBK. Wafdigani ayaa waxa socdaalkan ay ku marayeen goobahani ku wehelinayay maamulka gobolka iyo kan degmada Boorame. markii ay gaadheen wafdigani dugsiga MBK kaasi ku qaabilay isla markaana ku soo dhaweeyay maamulka sare ee dugsiga MBK bilaabmay waqti dheer wuxuu bilaabmay wuxuu ahaa kaliya inaan ogaado markaan ogaaday inaan cilmi dheeraad leeyahay oo kan ku hayn maaragtay Soomaaliya Afrika ayaa waxaan damcay inaan ku soo laabto 30 sano oo jooga Australia ma sha Allah marka nasiibku waa nasiib weeyaan jigjigaan rabnay inaan ka sameeyno wax kasta waan sameeyay hatta yellow cardkii iyo hadhiigta markaa haysatay way diidi kari waayeen khasab bay gu siiyeen laakiin waxa dhacday kaliya maaragtay nasiibku inuu socdo halkan bay noqotay waxa lagu yiraahdaa maaragtay naaska hooyo aad iyo aad u macaan marka ma sha Allah wasiirka xogeenka waxbarashadu halkan mid la jooga waa dadkii dhagax dhigay hadalla qiiro leh ayaa ku jira wali YouTube waan xasuustaa wuxuu wax ka soo bixi doono dad cajiib oo qaali ah ما شاء الله أدي أدبان قفر حسنا هاي سماركتي أن سكوح لنا هاي لودين ندع وان ماركتي مدون أن هاي أدي أدبوين هاي رنتي أنو حلقاسنا وان كوحلنا هاي وان شوقنا وحنربنا ماركتي حلقان إن شاء الله أنا كسمينو وايو وحنربنا ماركتي دلكينا يددكينا أنا ماركتي مسرقين waxaan ku soo dhaweynaynaa MBK International School oo ah iskool ay dhiseen qurba-joog ka timid Australia kana soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida oo hantidoodii iyo waxay hantiyayeen galiyay maanta mataqaanaa degmadayda isugu horreeyna waa naga sameeynay ninka reer kililka reer waradhanqo waa ka Boorame degay insha Allah halkaan uu ka bilaabi doobaan malaya sabab duruufiis ka jiray awgeedun ba xaga uga yimi marka dabadna wuxuu halkii kugu dhow halkan ba noqotay insha Allah imikana xaga waa qasab inuu isla dadkeenu in maskaxdeedu korwin baan u baahanahay wasiirka maalgashiga arrimaha qurba-joogta ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhankiisa hadlay ayaa ku ammaanay maamulka dugsiga MBK hawsha baaxadda leh ay bulshadooda u hayaan waxaana uu yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo dugsiga gaarka loo leeyahay ee MBK qurba-joog ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ay ka yagleeleen ay ka dhaqangeliyeen magaalada Boorame kulley shaqooyinka investmentiga la samaynayo education sectorka waxaan arkaa qaybta ugu muhiimsan ugu qiimaha badan qof hantiilihii uu maalgelin karo shaqada ugu farxadda badan in ciyaal la soo saaro mustaqbalka ummadeena shahayn kara marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad ku dhiirato inaad sectorkan maalgelin ku samayso waa shaqo dhib badan laakiin midhaheedu aad buu u fiican yahay waan dareemayaa qof qurba-jooga oo dadaalayay oo xilli dheer soo tabcay oo maalgashi sameeyay haddana xilli dheer buu ay faa'iido ka sugayaa marka nin raga un baa horta hawsha u badheeri karaa shaqo ma aha durba manaafacaad laga helayo investmentkii sectorkan wuxuu soconayaa xilli dheer muddo dheer oo 5 sano 10 sano ay ugu yar tahay ya samir iyo inaad meheradii kabto oo lacag la daba joogto loo baahan yahay ma aha sida sectorada kale insha Allah dugsigan si fiican buu taabagalay waa laga yaabaa dhibaatooyin inay jireen xilliyada hore ee deegaankaagii aad soo booqatay arrimihii aad mudnayd inaadan kala kulmin